السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دوادا ورر دق وهذا الصومالي نجسوا قاعدة هي ورك نجسوا قاعدة هنا وحاكمة عبد الرشيد حدق أو شيء إنه يمدحوينها جبلان هرانتي بشي أغسطس أيها الشيء يا إنه له شيء يا أحمد مذوبي وحاكلون إذا هنا ودق أيضا نسوا قارس مدحوينها فرماجة يورو كياتا أو قبان قابين هيو أما الشيء يا مركنا إلى كل مهيان إيا ماشى كل مهيان labada qodob oo faahfaahsan waxay noo haya saaxiibkay barre ilka case barre aad ma santahay Bashiiro hadii aan u guda galabno ama aan u guda galno wararka degdeg ah Soomaaliya naga soo gaaraya daawadayaashu waxay nagala soconayaan channelada kala ah Kismaayo Cable iyo Qarx Juqood waxaan ogeyn dabcan Jubbaland doorashada in khilaaf badan dhalisay mudana inuu soo jiitamayay khilaafka Jubbaland oo dhowr arrimo isugu jira mid waa Jubbaland madaxweynaha أحمد مذوب يدور في ذاك خلاف كل حياة من وعبد الرشيد حدق إيو عبد الناصر سرار الله وضع شاكتين مدح وليال جبلان كيهين مركب وردد هذا نسوق رأي وحو شقيا طبعا وحانو جايين على مسار كذب إن مضاحم إيو سياسيين فربضان إيو وفود فربضان وكقب قش على مسار كأي مقالة كسمايو مال ما كذب على مسار كأي كسقناين أو كل ما يكدعان مدحضان مركي إيمانيسي تصالحان عبد الرحمن عبد الشكور وقاميها حزب جواد الجر وحول شيء مالنتو كسماية مادة على مسار كوي مادين مدحوينها جبلان وكلها ضي إن أي أرنت خلافات كجبلان أي حل أولى الراديان قارهان عبد الناصر سيار يحدق ومقالات نحكي كسونا مركي أي لابتين مدحويني هرا الصومالي الشيخ شريف حسن شيخ محمود وسجن مدحويني ورئيس الصومالية أو شيخ شريف حلك قدام بي وحنا مقالة كسماية كهري وفدي وقابلني مدحوينها بطران سعيد عبد الله الدين ويسوى ها وفدي وهرية كسر قيب جاي على مسار كي مقالة كسماية مادي ورك هذا أنا هلا وحي شجيان إن مدحوين الديني يوفدي جيسي على كل من عبد الرشيد حدك وربحين هذا ولي ما ينسنوش شجن عبد الناصر السرار يعني لكل من لكن والله غيابه إنه كجري لكن هذا حدك بينوش شجن أرنت هذا ورك هذا أنا هينو حدك مركا وفدي سعيد عبد الله الدين مدحوين بتهم الله كل مي وحنا الله سجدي إن تنازله أو كتنازله سجشة مدحوينها جبلان ونتنازله مدحوينها جبلان أحمد مذوبي تاس بدل كذا مركا وحال ليري صدح قضب باكينيسا إن حد وله شيء أحمد ذوب ونتنازله برا صدح هذا قضب أظهر عليه يعني كل لو سينني مدحوينه وتنازله مركا أنا إجنه قابك دي أجيك كوسو قلنا أحمد وأنا هاي دورة شاد علي دي خلط بحر هذا لكن دي حدي وكلت سجا كل دورة شاد الأوجا ما هين لكن وحنا مغا نعكم ذا قبصدي تحسنا وحكي على تون خلاف كي جد دور شوين كم مدحوينها جبلان ومقعابي iyo qaabkii ama shuruudaha lagu xiray mashruuciinta u turtamay xilka madaxtinimada Jubbaland bay ka dhalatay murankii ka yimaada khilaafka arrimahaas ka dhashay marka saddex arrimood baa keenaysa la yiri in uu la heshiiyo Cabdi Rashiid Xidig madaxweynaha Jubbaland kow arinta koowaad waxa weeye in madaxweynaha Puntland uu u ballan qaaday Xidig in doorashada soo socota ee 2021 Soomaaliya ka dhacaysa kursigiisa uu sii xajisan doono laguna taageero kursigiisa madaxweynaha xildhibaanimo hadda uu fadhiyo Cabdi Rashiid Xidig mid labaad waxa weeye waxa loo ballan qaaday in arrimaha Jubbaland uu talo ku yeelan doono qof muhiim ah oo ka noqon doono mulkiila lacagana loo ballan qaaday iyo waliba in golaha wasiirada Jubbaland laga siin doono qayb xubin wasiir laga siin doono meesha marka ay wadaag noqdaan aad iyo aad qodobka saddexaad waxa weeye عبد الرشيد حدك اسماعي مدام وجوه كالفلقي برلمان كان وفرمي صدق كالفدوا برلمان كها اسوون ذلك الدبدي سكون مغنين فسحنا هيسين هدو كم مغنادو برلمان كوا laga saaraya automatically laga saaraya taa marka waxay qasbaysaa oo sharciga baarlamaanka sa qoray fadhiga baarlamaanka ka qayb galka Ismaaciil ka tago marka waa arimaha laga yaabo inay soo dadajiyaan inuu la heshiyo madaxweynaha Jubbaland ta kaleeto waxa weeye in oo laga yaabo in dawladda federaalka hadday tusaale ahaan ay doorasho qabato in Omar uu noqdo musharax oo meeshaas asagoo wax ka helin oo isagu meesha uu waxba ka helin watan u dhaanta markaa kursiga baarlamaanka uu sidaas ku waayo yaa iman karta way haduu tartamo kursiga baarlamaanka uu weynaya dawladuna waxa laga yaabaa in seerar ay soo istaajisato day doorasho qabato seerar iyadoo ay wadato dawladda xukuumadda ninka ay wadato uu noqon doono saasna uu ku soo bixi doono waxa jira warar sheegaya dawladda federaalka dhankeeda ka imanaya oo sheegaya
in cabdinaasir seeraar iyo xidig lagu cadaadinayo inaysan u tanaasulin axmed madoobe madaxweynaha jubbaland marka ay u socdo olole ka dhan dani mid uu sameynay arrimaha kulli way jiraan oo dabcan waan ogeyn dawladdu inay lacag ku bixinaysay seeraar iyo xidig in ay kismaayo joogaan oo xilka madaxtinimada ay sheegtaan marka waxaa laga yaabaa maadaama madaxweynaha puntland uu dadaal wado in arrintaasi lasoo aftay khilaafkaasi oo mees la isugu yimaado wadahadal arrintaasi lagu xaliyo maadaama madaxweynaha puntland uu sheegay in hawsha khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland iyo weliba kismaayo arrinta ka jirta ay ka odayn doonaan ayna isku dayi doonaan geed dheer iyo geed gaabana ay u fuuli doonaan sidii qaab wadahadal ah loogu xalina arrintaasi ku weydiiyay barrodo raalli dadka ruuxa wax dhexdhexaadinaya waxaa la rabaa in labada ruux la heshiis leeyahay puntland ma la tahay dowladda federaalka heshiis puntland waan ognahay xoogaa waxbaa ka dhexeeyey laakiin markaas khilaafka jubbaland iyo federaalka iyo midka jubbaland puntland iyo federaalka isku meel ma gaarsiisna waa kaan ogeyn ka jubbaland baa ka weyn waa kaan ogeyn kan puntland madaxweynaha calimasarkiisa madaxweynaha farmaajo uu ka qayb galay hadda intuusan calimasarka soo aadin madaxweyne deenina waa kii wasiirada loo diray ee la yidhi khilaafka soo gowgay calimasarka axmedoobana ka qayb galin taasoo uu diiday madaxweynaha puntland marka waxaa laga yaabaa arrintan qaabka ugu fiican ay tahay in wada hadal lagu xaliyo oo dhibkana taas lagu soo afjaro okay waxaa jirta warbixin kale ayadna qoraysa in uu deni sheegayay jubbaland iyo puntland inay macquul tahay in iskaga dhow yihiin maamulada kale dabcan dee markaad fiiriso dee taa wuxuu u sababeeyey tusaale ahaan soomaalida waxay dhahda cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka maadaama puntland iyo jubbaland federaalku khilaaf kala dhexeeyo khilaafka federaalka ayaa labadooda mideynaya inay gaashaan buur samaystaan iyo weliba awooda iskaga difaacaan khilaafka federaalka waxaa ay u suuragelinaysaa in ay saaxiib noqdaan oo ay isu soo dhawaadaan asal ahaanna marka aad fiiriso maamulada ka jira Soomaaliya labada maamul ee Israhan iyo Ehlaan isugu dhow Jubbaland iyo Galmudug Israhan iyo Ehlaanba way isugu dhow Jubbaland iyo Puntland marka loo fiiriyo maamulada kale marka sababahaas baa marka keenaya in ay isu gaashan buureystaan dowladda federaalka wixii ay rabeen marka ay diidaan dowladda federaalkana haday noqoto wada hadal ay iyago oo labadooda wada socda labada maamulba ay la heshiyaan haday khilaaf noqotaana dhinac waxa weeye labadooda isu buusaan oo ay dhinac isu raacaan taas keenaysa marro aad bad u mahadsan tahay qodobka labaad ee nooxiga waa farmaajo iyo Uhuru oo mar kale kulmahaya iyo meesha ku kulmahayaan macluumaadkaas wixii aad ka haysan la wadaag aad ma sada Bashiir waxaan ognahay tan iyo intii muranka badda uu dhashay in uu jiray muran diblomaasiyadeed iyo khilaafaad soo kala dhaxgalay labada dawladood Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad khilaafaadkaas wuxuu soo jiitay waa kaan ogeyn shirkii hadda New York ee qaramada midoobay Cabdi Fataax Xasiisi madaxweynaha Masar uu kulansiiyay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyadoo markaas laga wada hadlayay sidii loo soo celin lahaa arrimaha diblomaasiyadda labada dal kiiska badda oo ah waxyaabaha aadka la isugu hayana qaab macquul ah looga wada shaqeyn lahaa waa kan ogeyn madaxweynaha Kenya markii uu hadlay uu sheegay in wada hadal ay doonayaan ama dawladda ka go'aantay in wada hadal lagu xaliyo kiiska badda ama muranka badda kiiska badda Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya oo kadib hadlana waa ku sheegay inaysan arrintaasi iyaga wada hadal aysan ogolaan laakiin ay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamadda ka soo baxaya waan garsi taas marka kale waxay keentay kala taagnaan iyo kala fogaansho labada dal bay keentay sidii markii hore la moodayay ma aysan noqon iyadoo taasi jirta haddana madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya waxay isku arkeen Addis Ababa oo ma shirkii New York shirkii IGAD ee Addis Ababa ka dhacay maalin dhaweyto calimasaarkii madaxweynaha Jubbaland markuu dhacay waa madaxweynaha Kenya Nobel Peace Prize lagu tagayay madaxweynaha Kenya marka xaq u jiray madaxweynaha Farmaajo waa kii xaq tagay Ra'iisul Ethiopia waa kii xaq joogay shirkii IGAD baa xaq ka dhacay shirkaas markuu dhacay way sarkeen inkastoo aysan jirin kulan foolka fool ah oo dhaxmaray iyo wax ay ka wada hadleen aysan jirin hadana baa la xaftay ma jirto aad waliba iyadoo moodeysay iyadoo madaxda ay isu garab taagnaayeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Uganda madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo waliba ay isku xigeen madaxweynaha Kenya
Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo Farmaajo yar horreeyay wajiga isa siinaynin Farmaajo yar horreeyay yaad moodaysa labada inaysan wajiga isa siinaynin oo aysan sheekaysanaynin yaad moodaysa xogaa marka waxaa jiray in xurguf jirto waa dareemaysay mar kale haddana waxaa jira marka shir lagu casuumay ilaa 50 hogaamiye oo Afrikaan ah oo ka dhacaya dalka Ruushka mu dhacayso casuumada taal bishan aan ku jiro iyo dhacaya bartamaheeda waaya marka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ilaa 50 hogaamiye oo Afrikaan ah ku casuumay shir ka dhacaya dalkaasi shirkaas marka wuxuu u dhaxeeyaa Ruushka iyo Afrika iyo 50 madaxweyne oo ka socda Afrika marka madaxweynaha dalka Ruushka yaa dhigiisa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ku casuumay inay ka soo qayb galaan Ruushka tagaan ka soo halkaas ay tagaan marka madaxweyne Farmaajo waxa lagu wada isbuucan soo socda inuu ka dhoofo ama toddobaad ma shirarka aan arki jiray tusaale ahaan China iyo Afrika oo kale Mareykanka iyo Afrika oo kale dhici jiray ama Turkiga mise waa arin badda wax saameyn ku leedahay badda saameyn kuma lahan sida la sheegay inkastoo hadda warbixinta aysan soo bandhigin ujeedka rasmiga ah ee looga hadlay shirkaasi haddana madaxweynaha Ruushka ayaa ugu baaqay ilaa 50 hogaamiye oo Afrikaan ah shirkaasi u dhaxeeya Ruushka iyo iyaga inay xaga tagaan aad iyo aad sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi oo ahaa ninkii kulansiiyay Uhuru iyo Farmaajo iyo gudoomiyaha midowga Afrika yaa asagana xaga tagaya marka waxa fursad kale ku kulmi karaan waa fursad kale ku kulmi karaan oo ay uga wada hadli karaan wixii u dhaxeeya labadoodaba marka madaxweyne Farmaajo toddobaadkan ayaa lagu wadaa in uu maartay Ruushka tago isaga iyo wafdu hogaaminayo ka baxan magaalada Muqdisho magaalada Moscow ay ku sidaan kadibna magaalada Sochi oo dalxiis loo tago ay u sii Ruushka taala waa magaalada uu kulankaasi ka dhacayo marka lama hubo in ay kulmi doonaan oo ay wadahadal dhaxmari doono lama hubo in la kulansiin doono oo la dhalacayn doono maadaama labadooda hadda ay isku dhiiranaysa dhihid karin kaale aan fadhiisanay in ay ku soo kala tagi laakiin waa fursad meesha taalo igu wada hadli karaan wixii jira kiiska badda iyaga halkeeda ahaada laakiin wixii kale oo arrimaha diblomaasiyadda oo maartay madmadow hoo jira ay uga wada hadli karaan si dalna uu dal kale ugu xadgudbin qarannimadiisa iyo madax banaanadiisa marka arrimahaasi baa jira madaxweyne Farmaajo xaq u dooli doona shirkaasna dhowr 20 bishan arrimihii badana dib loo dhigayo arrimihii badda dib loo dhigay dabcan guuleed waa hadlay waxaad moodaa marka Kenya in dalabkeedii la fuliyay oo Soomaaliya aan dalabkeedii dhig jalaq loo siinin inkastoo Kenya ay dalbatay bisha September 2020 haddana laba bilood ma laga soo kadhigo bisha June ayaa looga dhigay marka waxaa moodaa inuusan Kenya dalabkeedii inuu hirgeliyay moodaa oo kii Soomaaliya oo ahaa in taariikhda laakiin waqtiga dambe la qabtay June taariikh 8 June 2020 la qabtay ma jirto maalin dambe oo kadib dhici karo ma saadaalin karo waxa laga yaabaa Kenya inay markale geysato muxuu ahaa maadaama hadda dalabkeeda aan la wada fulinin markale inay dalab hadana geysata laga yaabaa tiraa waqtigan loo kordhiyo Bashir waxa xusid mudan xilligaas in Soomaaliya ay tahay xilli ay isu daaranayso doorasho qarka u saaranta oo dalku uu xilli doorasho galayo tusaale ahaan dee dhaqaale u baahan tahay qareenadan iyo Soomaaliya macnaha meeshan muranka kiiska badda ma aha wax oo maartay meel loo kala loo qabanayo waa maxkamad caalami ah marka dhaqaale fara badan ma baahan tahay Soomaaliya waa ognahay deymaha lagu leeyahay xaaladdan aad baan u dareemaynaa iyo xilliga doorashada iyo kiiska oo kharash u baahan waxa laga yaabaa in isqaban waayaan waxa laga yaabaa in Soomaaliya marka ay dalbato in dib loogu dhigo inay ku adkaysto xilligaasna waa macquul in Kenya marka ay si dalbatana waa macquul laakiin xilligaasi kulli maadaama ay maxkamadda go'aamisay in la dhageysto kiiska waxaan sugaynaa jawaabta xigta iyo qaabka uu arintaas ay u dhici doonto